السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأنيقو أحمد معلن برنامج كان مانتا كهادلينا وحو دارن yahay waa maxay teknolojiyad markaad maqasho teknolojiyad maxaa kugu soo dhacaa teknolojiyadu waa walxa ay bini'aadam sameeyeen kuwaasoo nolosheena ka dhiga mid sahlan xaliyana dhibaatooyinkeena aadanaha oo dhan waxay leeyihiin baahiyo asaasi ah sida cuntada dharka iyo hoyga teknolojiyada ayaa inoo sahlaysa intan teknolojiyada qaar waxay leeyihiin waayaro ama xarko kuwaasoo la geliyo fiish ama socket sida chargerka wuxuu inaga caawiyaa dabaynta moobiladeena iyo waxa la midka moobilku wuxuu inaga caawiyaa helista xog kula xiriirista qaraabada iyo ehelka iyo bulshada inteeda kale laakiin teknolojiyada qaar ma lahan waayaro ama xarko sida socketka gidaarka ku xiran ama ku dhajisan daladu waxay naga caawisaa inaynan ku qoyin biyaha roobka isla markaana aan kaga gaashaamanaa qufulka wuxuu inaga caawiyaa ilaalinta guryaheena qasnadaheena iyo alaabaheena inoo gaarka qalinku waa teknolojiyad kaasoo inaga caawiya wax qorista run ahaantiina waa ka ugu horeeya ee aadanaha ku tiirsan yahay malqacad waxay naga caawisaa ku cunista cuntada haddaba aan dib ugu noqono su'aashii u horeysay ee ahayd waa maxay teknolojiyad mase la odhan karaa miis iyo kursi waa teknolojiyad ama miis iyo kursi ma teknolojiyad ba fadlan comment inoogu soo qor